Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaad kusoo dhawaataan qaybtayni labaad ee aan uga hadlaynay mowduuca findoobka. Findoobka waa dhibaato ay ka sheegtaan in ka badan 85% dhalinyarada, mana ahan cudur halis ah. Dhibaatada ugu weyn ee uu keeni karana waa wejiga oo haaro yeesho, dhaawac nafsaani ah, niyad jab iyo ka go'ida bulshada, tan oo ay ugu badan tahay gabdhaha. Sidee looga hortagaa findoobka? Nadaafadda waxay door weyn ka ciyaartaa furfuridda ama furidda afka qanjirada saliidda ee xirmay si aysan finan cusub u samaysmin. Si joogto ah wejigaaga biyo nadiif ah ugu dhaq adigoo aadan isticmaalin saabuun ama kiimiko kalaba. Finanka ka daa gacmahaaga, hana tuujinin waxa ku jirana ha ka soo saarin. Ka fogow cunooyinka warshadaysan ama kuwa bacaysan. Jooji isticmaalka sigaarka iyo daroogada kale. Haddaba findoobku ma leeyahay daawo? Findoobka waxaa loo isticmaalaa daawooyin badan oo ay ka mid tahay boomatooyin la marsado, laakiin waxaa kugu habboon in aad u tagto dhakhtar maqaar si loo arko finkaaga noocooda iyo heerarka ay marayaan sida aan ku soo faahfaahinay qaybta hore. Waxaa kaloo jira xanuuno maqaar oo dhowr ah oo u eg findoobka oo lagu daaweeyo daawooyin kala duwan. Siyaabaha dabiiciga ah ee loola tacaalo findoobka. Waxaa jira waxyaabo badan oo dabiici ah oo lagula tacaalo findoobka marka uu cusub yahay, dadkuna way ku kala duwan yihiin siday ugu fiicnaadaan. Sidaa darteed, waxaan halkan kugu xusi doonaa waxyaabaha waxtarkoodu la xaqiijiyay. Fadlan haddii aad tahay dadka allergiga qabo, waxaa laga yaabaa in waxtarka daawo dheeraadkan sidii la rabay inaad ku noqon weyso ee la xiriir dhakhtarkaaga. Qalka tufaaxa ayaan la safaynin. Waxaa badanaa lagu darsadaa cunnada sida saladka, wuxuuna wax ka taraa findoobka. Wuxuu qalajiyaa saliidda badan ee wejiga, wuxuuna furaa qanjirada xiran, wuxuuna la dagaalamaa bakteeriyada wejiga ku dhalato. Laakiin waa in aad xaddi yar ka isticmaashaa markaad wejiga ku dhaqanaysid, kadibna biyo ka dambaysiisaa. Waxaa laga helaa dukaamada qaarkood isagoo diyaar ah, malab iyo qarfe la isku shiiday. Labadan daabo waxay aad ula dagaalamaan caabuqa noocyadiisa kala duwan, khaasatan kuwa maqaarka ku dhaca. 2 qaado oo malab ah iyo 1 qaado oo qarfe ah ayaad isku shiidaysaa. Markay xanjo camal noqdaanna waxaad ku dhejinaysaa meelaha nabraha ay kaaga yaalaan muddo 10 daqiiqo ah, kadibna waad ka dhaqaysaa. Ogow waa in malabku uu yahay mid dabiici ah oo saafi ah. Babayga. Geedka babayga waxaa ku jira maado loo yaqaan papain, taasoo ka hortag u ah caabuqa iyo samaysanka malaxda, khaasatan markuusan aad u bislaan. Markaad qolofta iyo miraha ka saartid babayga, waad shiidaysaa adigoo biyo ku darin. Markuu cajiin oo kala noqdo ayaad marsanaysaa wejiga. 15 daqiiqo kadib waxaad ku dhaqaysaa biyo qandac ah. Qolofta oranjada ayaa la shiidayaa. Markay budo noqoto ayaad ku daraysaa biyo yar si ay u noqoto wax wejiga lagu dhejin karo. Waxay kaa caawin doontaa in unugyada dhintay ee maqaarka ay ka nadiifiso, qanjirada xiranna ay kuu furto. 20 daqiiqo kadib waad iska dhaqaysaa. Geedka dacarta. Faa'iidooyinka geedkan waxaa ka mid ah in maqaarka uu daawo u yahay, sidoo kale wuxuu daawo u yahay cudurro badan. Wuxuu yareeyaa bararka, finanka iyo caabuqa ku dhasha wejiga. Dhareerka geedka ayaa la marsadaa wejiga, waxaadna isticmaashaa nooca caleemaha balbalaaran ee qodaxda leh. Markaad kala dhambashid caleenta, waxaad ugu dhex tegi doontaa wax sidii maro cad oo khafiif ah oo dhareer badan leh. Taasi ku turturo wejiga muddo 30 daqiiqo kadibna ka dhaq wejigaaga dhareerka qalalay. Qolofta mooska. Mooska waxaa ku jira maado loo yaqaan lutein. Wuxuu jirka ka saaraa sunta, wuxuuna ka hortag u yahay horka iyo balbalka maqaarka ku dhasho. Qolofta dhinaceeda gudaha ee jilicsan ayaad wejiga ku tirtiranaysaa. 30 daqiiqo kadibna waad iska dhaqaysaa. Cunista toonta. Fadlan wejigaaga toon ha u dhaweynin, laakiin cuntada ku darso. Tan waxay difaac kaa sii doontaa ka hortagga caabuqyo tiro badan. Talo: iska ilaali in aad marsatid kareem ama daawo dhakhtar uusan kuu qorin. Waxaa dhici karto in ay wejiga kaa fool xumayso ama kugu reebto haaro aan kaa fuqi doonin ama dhaawac maqaarka ah in aad isgaarsiisid. Fadlan la xiriir dhakhtar haddii finanka wejigaaga ay ka sii darayaan ama ay isbedelayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.